wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka mid yihiin wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada agaasimaha fulinta HIV AIDS iyo madax kala duwan ayaa soo gaadhay gudaha caasimadda gobolkaasi oo Udubale Gubadle waxaanay dadweynaha waxgaradka iyo shacabkuba ay si ballaaran ugu soo dhaweeyeen gudaha magaalada Gubadle ugu horeen madal ballaaran oo loo sameeyay wafdigaasi ayaa waxa ka hadlay odayaasha deegaanka maayirka degmada Gubadle Dr. Saacid Cabdi Ciise maamulaha shaqaalaha madaxtooyada iyo gudoomiyaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga kulmiye barasaabka gobolka Hawd Ibrahim Cali Xasan iyo wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Axmed Soqor iyo agaasimaha Naasir Ayteex oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ka mid ah hadaladoodii wafdigan aan soo dhaweeyno aad iyo aad ayaan kugu mahadnaqaynaa madaxweyne waan kugu taageersanahay qaar kalena warkaas sugaynaa insha Allah taala waxa kale aan halkan ka sheegayaa in wasiirkan dalxiiska iyo dhaqanku uu yahay udub dhaxaadka gobolka Hawd waxaan kaloo leeyahay in haddaynu nahay gobolka Hawd sumadeeduna waxa weeyaan xisbiga kulmiye kulmiyaanu nahay calaamadeena waa kulmiye waxaanu ballan qaadaynaa haddii aanu nahay gobolka Hawd inaan la garab taaganahay xisbiga kulmiye hiliyahooba insha Allah taala waan soo baxnaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh reer Gubadle maanta wasiirka aad soo dhaweysay annaga aad baan idinku mahadnaqaynaa in aad noo soo dhaweyseen wasiirka cusubna waxaan u malaynayaa inuu maaragtay imikana nin konta kuno iskuul soo saaray weeye ardayda imikana waxaan u malaynayaa inuu waxqabadkiisu cad yahay oo maaragtay sida dayaxa uu ka cad yahay waxqabadkiisu idinkuna aad iyo aad u mahadsantihiin wasiirkiin aad iyo aad u soo dhaweyseen in kasta oo barasaab wanaagsan haysataan runtii oo aad iyo aad Ibrahim barasaab aad iyo aad wanaagsan haysataan waxaanu idin leenahay waa wadan magaalo aad iyo aad wanaagsan baatiin anigoo maalintii ugu horeysay Gubadle gobolka Hawd waan maqli jiray laakiin maanta waxaan qirayaa inuu gobol yahay jira insha Allah marka dambe aan soo noqdana inuu noqonayo gobolada Soomaaliland ugu horeeya magaciinuna xagga kubadda uu dheer yahay markaan qurbaad joogno agaasimaha HIV AIDS oo ah Naasir Ayteex walaalayaal waxaan leeyahay waa salaadii jimcayn ugu dhow hadalka badin maayo waxa aan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo waxa kale oo mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay waxaynu sidoo u sheegay maayirka caasimadda ee degmadani in aynu ku arooro ama aynu u hilino magacawga wasiiradan hadda iyo xilalkan cidayna siisay oo ah xisbiga kulmiye ayaynu isku ognay salaamu ala rasuulillah marka hore ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay cid ku haboon oo gartay cidii dadka matalaysay ee kasbashada lahayd runtii aad baan ugu mahadnaqayaa aadna waxaan u soo dhaweynayaa madaxda sharafta leh ee fadhida goobtan ee xilalkoodu ay kala duwan yihiin runtii waxaan leeyahay dadweynaha reer gobolka Hawd ee Gubadle runtii madaxweynaha jawaab fiican baad siiseen baan leeyahay jawaab fiican baad ka bixiseen magacaabistii madaxweynaha waxaana la doonayaa taasi in laga rumeeyo oo sidaasi kulmiye hawshiisa loo wada dhammaystiro runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa saacadda mana weynu joognaa waxaan leeyahay sida ay uga jawaabeen dadweynaha reer Gubadle ha uga jawaabaan dadweynaha kalena baa leeyahay jawaabtoodu runtii ah xubno culculus oo marka horeba saameyn togan oo xubnahaas oo ah runtii xubno culculus oo marka horeba saameyn togan oo positive ay nagu lahaa imikana madaxweynuhu xilal cusub inoogu magacaabay isla maraataana aynu ka rajayn doono inay qaranka iyo gobolka iyo degmada intaba ay wax badan u qabtaan aabihii waxbarashada gobolka Hawd waynu garanaa waxa soo dado jooga waa dadkii uu wax soo baray waxaan leenahay wasiirka cusub iyo wasiirku xigeenka iyo agaasimahaba intaba waxaan leenahay waad naga mudantiin inaanu idin soo dhaweyno waad naga mudantiin inaanu xaflad ballaaran idin qabanno inagoo mahadnaqa iyo soo dhaweynta iyo taageeradaaba aynu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u muujinayno waxaan leenahay soo dhaweyntiina reer Gubadle waad ku mahadsantiin wasiir iyo agaasime iyo wasiir ku xigeen
wasaaradda dalxiiska iyo tacliinta sare imika dhegta la ii saaray waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin waxa weeye iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo dalkeenna ka jirta abaartaa dhacday waxaannu ilaahay ka baryaynaa inuu sida ugu dhaqsaha badan leh ummad ilaahay abuurtay oo islaama baynu nahay walaalayaal horta marka hore waa salaaman tihiin halkan xafladda ka muuqataa waxa weeyaan waa xafladaynu kaga jawaabayno deeqda madaxweynuhu bixiyey ee aan ahayn halkan raggaynala fadhiyo oo qura ee waxay ka turjumaysaa in alla intii uu ku dhawaaqay ee madaxweynuhu fidiyey ee ahayd xilalka waxaanusan leenahay anigaygan ibraahim muuse ee idinla hadlaya waxaan ahaa dadkii galay odayaashii madaxtooyada galay ee martiyey ee ka martiyey xilalkan maanta iyo kuwa dambaba waxayse ahayd weliba waxaan leeyahay allayla madaxweyne haddaad naga aqbashay markii aan kuu soo gallay eenu ahayn beesha cabdallaahi bakor iyo reer sheekh cismaan inaad tii reer sheekh cismaan way kugu hadhaye jeebkaagay weli ku jirtaa waa inay ku xigtaa tan waanad mahadsan tahay waxaan leeyahay waa mudankayagii baalkuna is-amaahin ma laha oo imaka annagu siin mayno laakiin adaa hayee dee u keen waxaan leeyahay madaxweyne waada shiishkaagu maanta meel yaroo wanaagsan baad dhigtay laakiin halkii ka weynayd weli maad dhigin halkii ka weynayd waannu kaa sugaynaa waxaan halkan ku salaamayaa oo aan leeyahay dhammaanba odayaasha madaxda qurbajoogga xilalka haya maxaanku idhahdaa barasaabka gobolka hawl iyo qoladan cusub ee meesha joogta iyo wasiir ku-xigeenkii hore oo imakana ah hay-adda komishanka waxaan leeyahay xilkaa laydiin igmaday dhallinyaroy waxaan isleeyahay maanta waxay heleen 2 wasiir iyo wasiirka kale ee maqan 3 wasiir oo kuwii qarniga ah ayaan isleeyahay way heleen maanta kow maxaa ka mid ah بروفيسور خضر عبد الله بروفيسور خضر يوسف عبد الله oo ogtiin inuu ahaa aanu ahayn nin fudud waa warshad productive abo warshadii soo saartay buu ahaa waxa la maanta waxa jaamacadaha ku jira waxa weeyaan waa biochemist sidaasi iyo cilmigiisa ayuu ku qaatay inay naga helo oo ma uu noqdo xubintii naga soo baxday waxaa halkan fadhiya axmed xuseen oo aynu u naqaano axmed joqor waa axmed xuseen waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada waa senior ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa mahadda labaad iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed siiraanyo oo runtii isku shaandhayntii u dambaysay gobolkan hawd iyo cidda ka soo jeedda sad wanaagsan oo qiimo badan siiyey runtii aad iyo aad baannu madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa sida uu asiibay dadka waxtarka u leh gobolka ama danta dalka iyo dadka ee ka soo jeeda aad baannu runtii ugu mahadnaqaynaa waa halkeedii buu dhigay runtii isagoo khadar xaaji iyo maxaanku idhaahdaa qolada wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan intii uu magacaabayba ay yihiin rag muctarif oo waxqabad leh gaar ahaan khadar xaaji waa garanaysaan marka horeba dee xilka uu hayey marka horeba waxqabadkiisii uu ka muuqdaa gobolka marka horeba dhammaan somalilan ayuu ka muuqdaa runtii wuxuu ahaa annagoo madaxweynaha hor fadhina maalin saddexaadii ayaannu u sheegnay oonu kuhi madaxweyne waxa weeyaan khadar xaaji waxa weeyaan warshadaha ka dhisan dalka mid ka mida weeye oo ta ugu muhiimsana dhammaan wasiirrada agaasimayaasha shaqaalaha dawladda iyo inta aqoonta leh waa ninkii soo saaray runtii maxaanku idhaahdaaye aad iyo aad ugu sunta weeyaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa golaha cusub ee la magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada axmed xuseen jaamac iyo khadar yuusuf cabdilaahi iyo naasir ayjeex iyo maxamed ibraahim qabo oo isagoo laftiisa naga maqan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi madaxda sharafta leh kalena waa salaamayaa saabka gobolka la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka
هذا الكيو وقت وين وقول قابي هاي أوجد ما دام صلاة الجمعة اللي قريها ضد نقدم بيان مسؤوليتنا وحنا نقول لا هاي مدن يال وقت قال لي المقعبين وقنا هاي وقت قال وعادوا قابي هاي هذا نوا واجب ذلك اللي كسرن وايو ساعد واجب نسارن ساعد هدي ويك تهاي هدي بيل تهاي هدي سنة تهاي واجب ذلك اللي كسرن أو ذلك الله شقينا يو وحنا ما كان إلهي هاي وندسود ويلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول الله يا أفكار حسنك كل مية وإنكم الله حسنك كل مية شباب المسؤول ويلنا مسؤولية عصب أمل وينهم مقعبين الكمديين ساحل كي كوان خير حاج يوسف وأنا نقول شيء في الشارع ذا بتقول رئيسي أنا أسمع كنت إبراهيم وعاد قبل كان نشوي صايمين نسمع هي الدوليات هي من والما حمص كساري وأنا نقول هاي hawshan maanta aynu qabanayno ninka sharafteeda leh ee soo abaabulay ee magacaabisa daba galay inuu ilaahay ibraahim yahay saxabka barasaabka loo garaaco barasaabka ibraahim oo hawshan xagoo galay xusbi ahaan haddaan fariinteedii idiin sheego guddoomiyihii xusbiga wuxuu halkan iga soo faray inaan hambalyo gobolka hawd gaarsiiyo maadaama hoygii halganka ahayd mujaahidkana uu yahay dadkii halganka ka mid ahaa isaguna sharafaadiga ah waxaa fariin idinka wadaa kale wasiiradii ama kuwii cusbaayada magacaabay ee gobolka ka tirsan oo igu yidhi maanta hambalyada iyaguna naga gaarsiiya wasalaamu calaykum waraxmatullah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين دمان مرت شرفتا مسؤولينتا وسيرده وسير كحجينا مامورك قول كهود السلام والسلام انت لماتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحنا نقصد ياري قوي أمانة يا وحنا كشيء يعني كمعلم كيجي أو يمكن الله مقعد وسيرك تلحيسك يدقك تذكري ما صدار كده بعنا هاي دني زمان شوقا تبتي ويدود قرنة كحي دوبتان إلى تمسين ناراي تحان تدوينا تساتر كنول شودي إندوي سواتان كتغيد يدور كده مدنين المنسوين كان تعيكو هاي مدنين شاني روتي تبي سيراديني ما أنتنا تنبان ليهون إذن درسيني دبوقينا إفرها صدر بنياي دول عديد ما سدا بان هو سودا دغاي دلك waxaa jihayn kara aqoon daacad lagu hagay dad waxaa matali kara iskoodkay u doortaane dal waxaa midan kara sinaan lagu durdurtaaye dawubtaasi intay koobsato darajadii helaye khadar xaaji dayarto oo dhanbu aqoon kula dardarmaaye dadaalku wax dheer yahay dadkuna waa ogsoon yahay Dubai iyo Imaaraadka iyo duulka Yurub jooga daliidhaynta joogu isagu deel u daabacay degree PhD iyo cilmiga diinta uu shubay dhaaxay wasiir deelihii inagu danaysteene dhaaxaanu kaan dooran anagu dangaadhay dhaaxaan dawubtan dhanaanala ilduufay tushaasay markii hore jirtiyo daara kala doone tushaasay markii hore jirtiyo daara hore doone madaxweyne iminku duligay meelay darartaay imikay dilaacdo oo rajadu daaqad leedahay iminku dalkaygii u kacay ruux damiir lihiye imikay tamaasha iminku dalkaygii u kacay ruux damiir lihiye imikay tamaasha waxay la daartagay rajadii dulowda hadeer soo tabarrogane dayaxbaa ka soo baxay walle doorkan reer hawde
damaashaadka waxaana oogu wacan waa dalxiis badane daa'inow allahayow adaa daa'inku nahaye ladaadihii xilka khadar adaa dawga garansiine dariiquu istaagaba ka qaadaa ha garab yaalla du'aankugu asqaynay adaa darajo roon helaye waxba gabayguyuu ila durkina waxaan ku soo duubay khadarow dad baa jira ku nool dururuf beeneede horumarkaaga qaar diidanoo daacu faajire dad baa jira shaxaadkii oo ka hela dhuuni kala doone damaaciga warkiisiyo ka durug duunka daba jooga dulqaadkeeda yeelow u samir dira dirayn jaanle digtoonow digreedta aad qabtaatay dalqara weyne dibnahaaga how furin dublaha kugu agmeeraya dubxaaraana kuguma aan ogayn daahir khadarowe dalkeennaad u tahay dubxaaraana kugumaan ogayn daahir kharadoowe dadkeennaad u tahay maamulo waa dul badaaye na dalxiisii khadar xaajiyo waa ku dooranay gobolka maayarka degmada dhammaantood salaamta islaamka calaykum raxmatullaahi wabarakaatu xafladan qiimaha leh ee nagu marti qaadeen gobolka aad iyo aad baa u mahadsantihiin sidii la arki jiray gobolka looga bartay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ayadoo xilli adag ay tahay oo abaara ay jiraan oo gobollada xool looga maqan yahay haddana martiqaadkaa noo samayseen aad iyo aad baa u mahadsantihiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed siiraayo gobolka hawl xilal badan buu u magacaabay imaka wasiirada imika ila socda wasiirro dambe oo uu qaba ka mid yahay iyo wasiirro hore joogi jiray way jiraan kuwaana in la xuso waa wax meesha ku jira oo iyaguna waa wasiirro gobolka aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa dhammaantiinna aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan kaloon idiin sheegayaa gobolku waa gobolkii aasaaskii jamhuuriyadda somalilan laga asaasay mar walba xisbiga kulmiye wuu ku suntan yahay waxa weeyaan waxaan idiin sheegayaa waxyaabo runruna jiri jiray markii hore laakiin xisbigu gobolku waa gobol kulmiye caynkaasaanu idin leenahay waanu ku wada shaqaynaynaa waana kula wada shaqaynaysaan caynkaasaanu idin faraynaa annaku kolley odayaal fara badan iyo madax badan baa iga dambaysa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gobolka hawl waa inuu waxbarashada ku dadaalaa annaguna sida ugu quruxda badan leh ayaannu wax ugu qabanaynaa haddaannu nahay wasiirrada cusub horumarka waxaa lagu gaadhaa waa waxbarashada weliba khaasatan iskuullada farsamada gacanta ah haddii ilaahay nala qabto inaan dugsi farsamo gacan aan ka samayno gobolka hawl ayaan ku talagelaya marka sanadoo dhow sida quruxda badan leh ee aad noo soo dhowayseen dhammaan madaxda sharafta leh guddoomiyeyaasha taliyayaasha ciidanka iyo dhallinyarada gobolka hawl aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xigeenka agaasimayaasha xildhibaanada culimaaudiinka dadweynaha sharafta leh ee gobolka hawl wasiirkeenna inaga maqanay maxamed ibraahim aadan qabo waxaan idinku salaamayaa badhasaabka xooghayaha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaa inoo sharafa innagoo wasiirkeennii ku soo dhowaynayna gobolkeennii sharaf bay inoo tahay waxaynu leenahay ha laydinku daydo waxa weeyaan haddaynu nahay gobolka hawd waxaynu nahay xisbiga kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maxamed wuxuu ina siiyey wasiirro wuxuu ina siiyey agaasimayaal
wuxuuna siiyey maxay haytay inta aynu ka filaynay inta inaga maqanna waynu ka rajaynaynaa insha allah bismillaahi kariim waxaynu leenahay waynu soo dhawaynaynaa anigu haddaanu nahay aniga iyo kinsi cambalaash waxaanu qaadaynaa caawaaladayaa lamaanahay haddaanu nahay maxay haytay haweenkii kulmiye ee maxay haytay ay ka maqnaayeen wasiiradani waxaanu leenahay caawaaladaynaan lamaanahay baanu leenahay ayaanu qaadaynaa anigoo maxay haytay guddoomiyaha wacyigelinta ee gobolka hawd waxaan qaadayaa maanta daawo oo la dekee haddaba ayaan qaadayaa waxaan helay garab waxaanu helay gaashaan waxaynu nahay xisbiga kulmiye waynu soo dhawaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanu leenahay agaasimaha xooghayayaasha maxay haytay wasiirada soo dhawaada baanu leenahay soo dhawaada gobolka ku soo dhawaada intii inaga dhimanna waynu dhammaystiraynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyana wasiirka cusub qadar xaaji yuusuf cabdilaahi wasiir ku-xigeenka axmed xuseen rooble joqor agaasimaha fulinta ee la dagaalanka aydiska naasir ayjiya jaamac cawad oo saddexduba heelal cusub loo magacaabay saddexda waxaan leeyahay gobolka hawd iyo degmada beligubadde amba reer beligubadaan ahaye ku soo dhowaada waxaan idin leeyahay xilkaa laydin magacaabay runtii waa xil aan u arko inaad intiinuba gudan koraysaan haddaan ku soo noqdo ujeeddada aan isu taagay anigoo odaygiinnina siyaasigiinnina shirka aan idin soo gebagabeeyey xafladda sharafta leh waxaan sheegayaa sidaa maanta isbeddel weyni uga muuqdo xaruntii gobolka hawd ee beligubadde sidii maalmahay maro ahayd maanta waxaa ka muuqda nuur ku xidhan dawladda uu hoggaamiyo axmed maxamed maxamuud siiraayo hoggaamiyaheennii halganka hoggaamiyaha somalilan maanta iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee musharaxa xisbiga mustaqbalka madaxweynaha wardaaya u tartamaya muuse biixi cabdi oo labaduba ay ku suntan yihiin inay yihiin raggii beligubadle degganaa halganka ka waday dhagaxa barkanaayey kabahooda barkanaayey sidii ummaddan ay uga saaraan cadaaladdarradii dhibaatada haysatay waxay ka mid ahaayeen amba hormuud ka ahaayeen beligubadle markaannu doonaynay asana golaha iyagii jamhuuriyadda somalilan curiyee dhaliyey maalintaa waxaan bandhignay in beligubadle loo abaalgudo raatidii ugu dambaysay siyaad barre ayaa inugu dhacday waa tila laabo adigii rabbigaa rasaas ka barya ku raaxaysta reenka kaaraha ee halkaa maydkeena la wadhan linugu dhugtamayey runtii degmada beligubadle abaalmarin degmaa looga dhigay waxaa hormuud ka ahaa axmed maxamed maxamuud oo aan ka codsanno in isugu hormuudka noqdo bersonali anugu aan ka codsaday waxaa seexay oo dhaqan geliyey oo ku ammaanan saleebaan maxamuud aadan saleebaan nuur komishinka la dagaalanka HIV-ga isagu ma aha agaasime HIV-ga laakiin waa la dagaalanka HIV-ga la taliyaha madaxweynaha maayarka iyo madaxda kale ee golaha deegaanka madaxda kale ee heer gobol aad iyo aad baan runtii aan idiin salaamayaa waxaan salaamayaa hanweynahan runtii aad u bilcay xafladda dhallinyarada runtii reer beligubadle oo maanta aan aad ugu mahad celinayo dareenkiinnaana aa muujiseenna ma ilaaweyno waa la soconaynaa dareenkiinna aa muujiseen waxaan leeyahay waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweynaheenna qaaliga madaxweynaha qaranka axmed maxamed maxamuud aadan iyo runtii tiimka adag ee la shaqaynayey wasiirka madaxtooyadu uu u horeeyo ciddii kale ee ka shaqaysay ee ka tala bixisay arrinkan aa ku faraxsantihiin maanta aad soo dhowayseen waxaan leeyahay anigoo madaxweynaheennii maanta wakiilka oo barasaabkii gobolka wixii kale ee dhindhimanna waynu ka wada tashan doonnaa waynu ka wada hadli doonnaa
wixii tala ah waa u gudbinaynaa madaxweynaha haddii alla ka dhigo weliba waxaan idiin ballan qaadayaa madaxweynaha mustaqbalka guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo isagana aan wakiil ka ahay xisbigii gobol ahaan 4 degmo iyo xarunta gobolkaba dib baynu u dhisaynaa dhallinyarada loo dhiibayaa waxaan idiin ballan qaadayaa dhallinyarada inaynu hawlgelino aan idiin ballan qaadayaa iyadoo aan arko tiimka dhallinyarada ee la hawlgeliyey sidaa ugu faraxsan tihiin waxaan rajaynayaa in kale oo dhallinyaro ah oo xidhmooyana ama xisbigaanu ka hawlgelino ama meelo kale aan ka hawlgelinne waxaanu ballan qaadaynaa inaynu hawlgelino haddii ilaahay yidhaaho waxaan rajaynayaa inaynu wada tashan doonno innagoo ay dad badanna inoo yimaadeen waxa inoo dhindhimanna ay ka wada tashan doonno wixii talaana aanu gudbin doonno aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo dhowaynayaa wasiirkeenna wasiir khadar xaaji yuusuf wasiirka wasaaradda dalxiiska guntii iyo gabagabadii waxaa soo afmiray wasiirka wasaaradda dalxiiska mudane khadar xaaji yuusuf waxaanu hadaladiisu ku aadanayeen mahadnaq iyo waxqabad hor leh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan kali aanu kacay waa mahadnaq aanu soo jeedinayo in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabka Balgubadle ama gobolka Hawd iyo dhammaan ummadda Soomaaliland ku dhaqan ee taageerada hiilka hoobkaba ay haya ayaan aad u soo dhaweynayaa Balgubadle marka horeba waan ahaa ma noqon doono mid Balgubadle ka shaqo taga laakiin waxaan noqonayaa mid Balgubadle in shaqo u qabta ayaa noqon doona oo si markii horeba aan shaqada ugu qaban jiray inaan imakana aan u shaqo tagay iyada ayaa noqon doona waxyaalaha aan doonayaa inaan xoog ka saaro oo culays aan ku saaro oo aan doonayaa in isaga ku dhaqsaa badan loo qabto waxa ka mid ah riiga ayaa ka mid ah waxaan idin ballan qaadayaa ama riigaasi waa la qodi doonaa ama da meeshaan iskaga tegi doonaa ama riiga waa la qodi doonaa insha allah saasaa noqonaysaa waxaa kaloo aan ballanqaad aan idinka hayaa in wasiirka howlaha guud oo aanu xalay wada joognay oo isna ballan qaaday anigoon xilkiiba la wareegin haddana noo ballan qaaday inuu 5 kilomitir waddaa noogu deeqi doono iyana waan ka sidaa ballanqaadkaas isagana waan u mahad celin doonaa insha allah cali xasan maxamuud cali maraxaan oo ballanqaadkaa siiyey anigoo weli xilkiiba aan la wareegin haddana taasi waxay noqonaysaa maadaama tacab hore aan geliyey gobolka Hawd waxbarashadiisa maxkamadiisa iyo waxyaalo badan oo hore aan geliyey imakana inaan ahay reer Balgubadle inaan ahay oo wixii hore wax ka wanaagsan baa laga filayaa waa horumarkii hore aan idin samayn jiray oo aan wasiir u noqdin weeyaan